inta badan saxafiyiinta Muqdisho qorayaal iyo marti sharaf kale ayaa kulankan sagootinta Muqdisho ugu qabtay mudane Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaan duqii Muqdisho oo hadda xafiiska baneynaya ka qaybgalayaasha oo u badnaa saxafiyiin kulankan soo qaban qaabisay ayaa mudane Taabid ku amaanay waxqabadka muddadii koobneed ee uu xafiiska joogay u gargaaridda dadka dhibaataysan sida caruurta iyo haweenka maareynta iyo ka shaqaynta musiibadii soobe maamul wanaagga dawladda hoose habla dhaqanka hoggaanka naxariiseed ee bulshada isdhexgalka ciyaaraha iyo soo dhawaanshiyaha bulshada dib u dhiska wadooyinka iyo xarumaha danta guud sida taalooyinka iyo darjiimanka iyo kuwa kale ayaa ka mid ahayd waxyaabihii lagu guddoonsiiyey biladooyin qaali ahaa duqii Muqdisho Taabid Cabdi ayaa kuraastooda ugu tagay ka qaybgalayaasha si uu dareenkooda u dhageysto gabagabadii xafladda ayuu khudbad u jeediyey mudane Taabid Cabdi Maxamed uu ku sheegay inuu sii wadayo ka shaqaynta arrimaha bini'aadanimada gargaarka iyo naxariisashada inta dhibaataysan waxaan soo qabanay howlo gaar ahaan kuwa arrimaha bini'aadanimada waa waajib qof kasta saaran qofka danyarta ah in la garab istaago nabaddu cadaaladda iyo horumarka wuxuu ku yimaadaa kan mudan ee danyarta ah marka la garab istaago xilku waa meerto niyad wanaagga iyo naxariista meerta maaha waana sii wadi doonaa insha allah taala insha allah taala wanaaggii aan wada helnay annagoo garab istaagayna maamulka cusub iyo annagoo iskaashanayno ayaan sii wadi doonaa si ummadda Soomaaliyeed ee iftiinka u baxay rajada qabay aan sii wadno riyadii lagu rumeeyay riyadaas oo ah Muqdisho oo nabad ah Taabid ayaa bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir si ay Muqdisho horumar u gaarto duruufahaas adag oo aad nagula soo shaqayseen waxaan idinka codsanayaa inaad kula shaqaysaan saaxiibkay duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee cusub injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo ah saaxiibkii mas'uul injineer Yariiso waa saaxiib bahda saxaafadda ah maadaama saaxiibkii uu yahay wadajirkii waxqabadkii iyo kartidii aad muujiseen oo aan ku kalsoon inaad muujin doontaan inaad sidoo kale saaxiibkiina la garab istaagtaan waxaan saaxiibadii kula dardaarmayaa saaxiibada cusub ee idinka idin bedelay inaad garab ku siisaan hawshii aad soo qabateen intii ka dhignayd ee aragtida ahayd waxaan ku shaqaynaynaa waa aragtidaas oo ilaahayeen dadka muqdishowiinta si loo gaarsiiyo ayagana waxay ka codsanayaan ku caawisaan dadka Muqdisho ayaa ku xusuusan doona gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudane Taabid Cabdi Maxamed waxqabad muddo kooban iyo horumarinta caasimadda Cabdinaasir Maxamed Telefishinka Universal magaalada Muqdisho